daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadan ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo siyaabo kala duwan u hadlay xaaladda gobolka Gado. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi oo soo gaaray Somaliland, dagaal ku dhex maray magaalada Muqdisho, ciidamo ka watirsan dowladda oo dad rayid ay ku dhinteen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka Djibouti u ambabaxay, iyo waliba ku soo dhawaada warkii oo dhan. aanu ku bilaabanay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen xaaladda gobolka Gado. wararka ka imaanaya gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto xaalad dagaal oo u muuqata inay isku dhici karaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Jubbaland. wararka ka imaanaya gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ay qarka u saaran yihiin inuu dagaal ku dhex maro magaalada Baladxaawe ee xadka ku taala. dowladda Soomaaliya ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay la socoto ficilada ay wado dowlad goboleedka Jubbaland oo waliba ay kaashanaysa dowladda Kenya oo ay sheegtay in maleeshiyada dowladda Soomaaliya baxsadka ay hubaynayso. wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Dube oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay inuu dowladda Soomaaliya ay ilgaara ku hayso wararka ka imanaya xadbeenaadka Kenya ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, halkaas oo uu sheegay in dowladda Kenya ay wado ficilada dandaasiya oo ka dhana dowladda Soomaaliya. wasiir Dube ayaa waxa uu intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin waxa halkaasi dowladda Kenya ay ka wado qaranimada Soomaaliya ay difaacayso. dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu soo saaray warbixin uu ku sheegayo in dowladda Soomaaliya ay wado ficilo qaawan oo faragelin oo ka dhana dowlad goboleedka Jubbaland. wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aysan dowladda Jubbaland u dulqaadan doonin waxyaalaha halkaasi ka socda. waa nasiib darro in ay dowladda Soomaaliya ay u isticmaasho hubkii qaranka iyo ciidamadii qaranka arrimo siyaasadeed. waxa uuna sheegay in dowladda Soomaaliya ay in dhaweydba dagaal kula jirtay dowladda goboleedka Jubbaland, waxaana hadaladiisa ka mid ah cadaynaysa in madaxweynaha dowladda federaalka iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ay isticmaalayaan magaca qaranka Soomaaliyeed iyo hantidii ummadda Soomaaliyeed oo ay colaad kaga rideen kagana abuureen gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland. intaasi oo muddo dheer soo jirtay oodna ogeydeen dagaaladii ka dhacay 2 March 2020 dagaalkii khasaaraha naf iyo maalba lahaa ee barakaca dheer lahaa. gobolka Gado ayaa waxaa in dhaweydba ka socday dagaalo iyo waliba xiisad u dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo oo dowladda Soomaaliya in badan ay ku eedeysay in dowladda dalka Kenya ay wada faragelin ka dhana dowladda Soomaaliya iyadoo markii dambe xiriirka ay u jartay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dalka Malawi ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Hargeysa. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Malawi ayaa waxa magaalada Hargeysa ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, iyagoo oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxaa la sheegayaa in arrimo badan isla soo qaadeen. madaxweyne Biixi ayaa uga mahad celiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Malawi oo uu sheegay in uu ku soo dhaweynayo in dowladda Malawi ay soo boqoto Somaliland, iyagoo arrimo badan oo kala hadlay. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in arrimo dhowr oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda iyo Somaliland ay isfahan ka gaareen, isagoo oo sheegay in xidhiidh ay yeelan doonaan Somaliland iyo waliba dowladda Malawi. maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay in Somaliland ay dalalka Afrika ay xiriir la yeelanaysay iyadoo dowladda Soomaaliya dhowr wadan oo ay kamid tahay Kenya iyo dowlado kale ay xiriirka u jartay oo Somaliland ay booqatay. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in uu yaraan 8 qof ay ku dhinteen dagaalo ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho.
dadkan halkaasi ku dagaalamaya waxaa ka mid yahay ciidamada militariga Soomaaliya oo isku haysta dhulal halkaasi ku yaala una abaabulan hab beeleed waxaana la soo sheegayaa in halkaasi ay dad rayid oo badan ay qatar ka soo gaaray inta la xaqiijiyay ilaha caafimaadka 8 qof ayaa ku dhintay halka dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawaceen kadib markii ay maleeshiyaadkaasi fooda istareen iyaga oo isku haysta dhulal halkaasi ku yaala degmada Karaan ee magaalada Muqdisho ma jirto si toos ah soo kala dhaxgashay waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalku uu si qoys u socday muddo dhowr saacadood ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ambabaxay dalkaasi Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku sii jeedaa magaalada Djibouti caasimadda Djibouti halkaas oo bari uu ka dhacayo shir u dhaxeeya urgoboleedka IGAD oo laga hadli doono khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba dawladda dalkaasi Suudaan iyo Ethiopia wararka waxay sheegayaan in arrimahaas lagu qorfayn doono urgoboleedka IGAD oo hadda ay madax xubin ka yihiin dawladaha ku yaala bariga Afrika haddana waxaa haya gudoomiyenimada dawladda dalkaasi Suudaan iyaga oo khilaaf xooggan u kala dhaxeeya dawladda dalkaasi Suudaan oo muranka ugu weyn uu yahay webiga halkaasi Ethiopia ay ka dhisaso warkii caalamka kala socotaan channelkan ku nabashirto kale YouTube-ka walaalahaasi nabadgelyo